أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدشة سجود بان وسلام يا. halkan waxaan ka soo jeedinayaa warmutiyada ka soo baxay shirka oo maanta 5 bisha December 2025 ay ku yeesheen beelaha Muuse Saleeman ama Ugaar Saleeman ee gobolka Bari. shir ay beesha Ugaar Saleeman ku yeesheen magaalada Boosaaso ee gobolka Bari maanta ay taariikhdu tahay 5 December 2025 أنا كسوق يمكن اسمه سياسيين كنعصته علماء الدين أقوياء دليل حوين يوم التشرف كله أيها وحلو فرنقية أرهم الدورة ويكمديهين أرهم أمنية إسكاشية هرمارينتا يتشجود وكسابسا حالة بدلان كارهان أو كارك السعودة وراها على المسكات شركة أنت وسعودي وحديرة الوسارة أرهمها أمنية سياستها أرهمها بالشدة دود الكذب شركه وحو اسكو راعي arrimaha hoos ku xusan lambarka arrimaha amniga shirku waxa uu taageero xambalyo iyo bogaadin u dirayaa ciidamada geesiyaasha ee Puntland oo ku jira gabagabada hawlgalka la dagaalanka argagixisada ee Daesh lambarka shirku waxa uu bogaadinayaa dawladda iyo dadweynaha reer Puntland sida ay mar walba garab istaaga waajib gudashada وموجيان عندما دفاع دولة بودلان لمبر لبو شركة بيشو وحو قاميي إن بيالها وراها يودودا كيهين كلان ورادان نبات إسكاشي درسنمو إي ولالنمو نقضب صدحات شركو وحو دولة بودلان حيدها عالمية يكون محلقة وقبا غيا إن كانوا بنا آدم للقارو إن كبضان كون قويس oo shaqadoodii iyo deegaanadoodiiba ku waayay dagaalada lagula jiro argagixisada Daesh qoysaskaas oo ka soo kala baxay deegaanada kala ah Xiliya Camayra Xarawo Dhaman Cado oo dhamaantood dhaca Almiskaad kuna soo barakacay deegaanada kala ah Dawacalay Ammaan Onkode Balade Faruuriyo iyo degmada isku shuban oo dhamaantood ka wadsan gobolka Bari sidoo kale qodobada ka soo baxay shirka maantay beelaha Muuse Saleeman ku yeesheen degmada Boosaaso waxa kamid ah arrimaha siyaasadda lambar 1 shirku wuxuu aaminsan yahay in la ilaaliyo lana turxaan bixiyo heshiiskii bulshada lagu aasaasay dawladda Puntland 1998 lambar 2 shirku waxa uu hoosta ka xariiqay in beesha suluug ka qabto habsaami qaybsiga Puntland sida awgeed shirku wuxuu ku baaqayaa qodobada tan hoos ku xusan in saami qaybsiga dib loo eego lana dheelitiro awood qaybsiga heerarka golayaasha dhexe ee dawladda heer gobol heer degmo heer ciidan iyo heer mashaariic intaba nambarka ta sidoo kale shirku wuxuu cadeynayaa in dawladdu ka gaabisay arrimaha horumarinta deegaanada beesha degto waxa shirka dawladdu ku baaqayaa in si degdeg ah dawladdu wax uga qabato jawaabna ka bixiso baahiyaha asaasiga ay ugu horeeyaan biyaha qodobka saddexaad shirku wuxuu aaminsan yahay in midnimada wax lagu yahay laguna xoogan yahay sida awgeed wuxuu ku baaqayaa midnimada Puntland iyo midda Soomaaliyeed lambarka afraad shirku waxa uu dawladda Puntland ee hay'adaha deeq-bixiyaasha ugu baaqayaa inay si degdeg ah ugu gurmadaan dadka reer guuraaga ah ee ka soo barakacay Almiskaad sidoo kale ay saameysay abaaraha baahsan ee dalka ka jira gabagabadii warburtiyada shirku waxa uu go'aamiyay in la qabto shirweyne beelaha Muuse Saleeman ama Ugaar Saleeman ku dhan yihiin la isugu yimaadana horaanta sanadka 2026 bilaay tawfiiq